haddii aan ku dhaha ka waran adiga sababta u cayishay waxaa laga yaabaa inay tahay metabolismkaaga ama dheefshiidkaaga inuu yahay mid tartiib ah. haddii metabolismkaaga ama dheefshiidkaaga uu yahay mid kor u kacsan, markaas waxaa suurtagal ah adoo raashin badan cunaayo in aadan ku cayilin. Tusaale, laba nin oo isku miisaan ah, isku da ah, isku shaqo qabto, isku dhaqdhaqaaq suubiyo, isku raashinna cuno, raashinkaas isku midka ah ee labadoodaba cunaan waxaa laga yaabaa midna inuu ku cayilo, midna inuusan ku cayilin. sababtuna waa metabolismkooda uu kala duwan yahay. haddaba videogan waxaan kugu sharaxaa metabolismkaaga markuu kor u kacsan yahay ama markuu dhaqsan yahay faa'iidada ay leedahay. marka videogan dhammaadkiisa fiirso, ballan waaye wax badan aadan ogeyn ayaa maanta baranaysaa. asxaabta soo dhawaada, saaxiibkii Mariole Masal waaye, minikiini waaye, adiga walaashay walaalkay. hadda channelkan ku cusub tahay, aniga magacayga waa Cabdinaasir. waxaan soo biyaa video ku saabsan jirdhiska iyo raashinka. videoga inta ugu galin waxaan si sharaf leh kaaga codsanaa videogan like na saartid, comment ka soo bixisid, asxaabtaada u share gareysid. haddaa wali subscribe hina fadlan subscribe leh. waa ogtihiin dadkeena dad badan oo arrimahan xiiseynayaan kuma jira. marka adiga videogan fiirsanayo haddaa like saarin, comment ka soo bixin, asxaabtaada u share gareyn, qof kale ma suubinayso. aad iyo aad u mahadsan tahay. horta wax kale inta aanan ka hadlin waxaa fiican inaan wax ka ogaano waa maxay metabolism. metabolism af Soomaali ahaan waa dheefshiid. waa processka jirkaaga suubinayo raashinkaa cuntay si ugu bedelo energy, ama waa isbedel kimikaal oo ka dhexdhacayo unugyada si raashinkaa cuntay loogu bedelo energy. markaasna jirka waxa u suurtagalayso inuu suubiyo dayactir ama inuu suubiyo unugyo cusub. metabolism waxay u kala baxdaa laba qaybood, catabolism iyo anabolism. catabolism waa processka raashinka adiga cuntay jirka uu jajabinayo si uga dhigo molekulo yaryar, markaasna jirku way u fududaanaysaa inuu nuugo. anabolism waa processka molekulo yaryar isku dhadhajinayo si uu noqdo molekul weyn, markaasna jirku waxa u fududaanayso inuu dayactir suubiyo ama inuu dhiso unugyo cusub. waxaa kaloo muhiim ah haddaan ka hadlayno metabolism inaan wax ka ogaano habka bini'aadanka energy-ga uu isticmaalo ama habka bini'aadanka calorieska uu gubo. bini'aadanka 4 siyaabood ayuu energy-ga uu isticmaalaa ama calories u gubaa. habka koowaad oo bini'aadanka energy-ga uu gubo ama calorieska uu gubo waa basal metabolic rate, BMR ayaa la dhahaa. fiiri, markaa waxba qabanaynin, kursiga fadhisaa ama sariira saaranta xitaa, markaas xitaa jirkaaga energy badan ayuu gubaa. bini'aadanka average ahaan 70% energy-giisu wuxuu gubaa markuu waxba qabanaynin. sababta waxay tahay organada gudahaaga ku jiro inay shaqeeyaan waxay u baahan yihiin energy. inaad neefsato jirkaaga energy u baahan yahay, wadnaha inuu ku garaacmo energy u baahan yahay, dhiigga inuu jirka wareejiyo energy u baahan yahay. marka bini'aadanka energy-giisa u badan wuxuu gubaa markuu waxba qabanaynin, sababtoo ah organadiisa inay shaqeeyaan waxay u baahan yihiin energy. habka labaad ee bini'aadanka calories ama energy u gubo waxaa la dhahaa need, non exercise activity thermogenesis. waa energy-ga ama calorie-ga aad gubaysid marka aadan jimicsi suubinaynin. tusaale ahaan markaa gurigaaga nadiifinaysid energy aad gubaysaa, markaa dukaanka kasoo adeeganaysid energy aad gubaysaa, markaa raashinka xitaa karsanaysid energy aad gubaysaa. dhaqdhaqaaq walbo aad suubisid aan jimicsi ahayn energy-ga ku gubaysid ayaa tan laga wadaa. qiyaastiina dhaqdhaqaaqa normalka ah maalintii bini'aadanka suubinayo energy uu ku gubayo waxaa lagu qiyaasay ilaa 15% average ahaan. habka saddexaad ee bini'aadanka energy uu gubo waxaa la dhahaa TEF, thermic effect of food. raashinka cunaysid xataa markaa cunaysid energy ayaa gubaysaa. tusaale ahaan raashinka markaa calaalinaysid jirkaaga calories ama energy ayuu gubaa. markaa cuntid raashinka kadib caloosha tago, caloosha inay dhalaaliso, markaas xitaa processkaas jirka energy ayuu ku gubaa. habka afraad ee bini'aadanka calories ama energy uu gubo waxaa la dhahaa eat, exercise activity thermogenesis. waa calorie-ga ama energy-ga aad gubaysid marka aad jimicsanaysid. dadka inta badan tan waa isku khaldaan. ma ogtahay average ahaan 5% ayuu gubaa bini'aadanka energy-giisa marka uu jimicsanayo. dadka inta badan waxay u haystaan calories badan inay gubaan marka ay jimicsanayaan, laakiin taas run ma ahan. ma ka hadlayo dadka athletics-ka ah ama dadka saa'idka u training gareeyo, laakiin qofka normalka ah average ahaan marka uu jimicsado ama energy uu ku gubayo jimicsiga waxaa lagu qiyaasaa 5%. marka hadda su-aasha isweydiiska mudan waxay tahay maxaa ka dhigi karo dheefshiidkaaga ama metabolismkaaga inuu noqdo mid tartiib ah. qofka normalka ah caafimaadka qabo metabolismkiisa ama dheefshiidkiisa inuu noqdo mid tartiib ah waxaa ka dhigi karo 5 waxyaabood. tan koobaad oo ah genetics, soo ilaahay ku abuuray.
da'da, raashinka aad cuntid, jimicsi la'aan iyo lifestyle-ka aad ku nooshahay. marka shantan waxyaabood oo aan kuu soo sheegay oo aan ku dhahay waxaa laga yaabaa dheefshiidkaaga ama metabolismkaaga inay tartiibiyaan. shantooda laba ka mid ah waxaa ka qaban kartid ma jiraan, saddexna wax weyn ayaa ka bedeli kartaa. labadaa wax ka qaban karin waa geneticskaaga iyo da'daada. tusaale ahaan geneticskaaga hadduu ilaahay kuu abuuray in dheefshiidkaaga ama metabolismkaaga ahaado mid tartiib ah, taas waxba kama qaban karaysid. da'da iyadana waxba kama qaban karaysid. tusaale ahaan qofka markuu uu gaaro 30 sano 10kii sanaba waxaa ka dhaceyso average ahaan 3 kiilo oo muruq ah. taasna wax weyn aad ka bedeli kartid malahan. marka 10 sano kasta haddii 3 kiilo kaa dhacdo, dabcan si toos ah iyo si dadbanba waxyeelo ayay ku yeelanaysaa metabolismkaaga. marka jimicsi la'aanta wax weyn ayaan ka qaban karnaa. dabcan haddaad tahay qof aan jimicsan, markaas waxaa suurtagal ah inaadan lahayn murqo kugu filan. nin iyo naagba inay murqo leeyihiin way fiican tahay, caafimaad waay. dabcan markaan ku dhahayo murqo kama wado murqo waaweyn, waxaan ka wadaa murqo adiga kugu filan. nin iyo naagba inay muruq dhistaan waxaa khasab ah inay suubiyaan resistant training noocu rababa ha ahaado. marka inaad muruq leedahay caafimaad bes ma ahan, waxaa kale kuu suurtagelinaysaa inaad cuntid raashin badan. tusaale ahaan 1 kiilo ee muruq oo jirkaaga ku yaalo maalintii wuxuu ku baahan 13 kilocalorie, meesha 1 kiilo ee baruura ee jirkaaga ku yaalo ay maalintii gubayso 5 kilocalorie bes. marka nin ahow ama naag ahow, haddaad rabtid dheefshiidkaaga ama metabolismkaaga inaad ka dhigtid mid dhaqso ah, waxaa khasab ah inaad murqo dhisatid. waxaa kaleeto wax weyn ka qaban karnaa raashinka aan cunno. tusaale ahaan qof cayilan aad tahay, waxaa rabtaa inaad miisaan iska ridid. haddaa gaajo isku dishid adoo isdhahaayo si dhaqso ah miisaan iskaga rid, markaas waxaa imaanayso metabolismkaaga ama dheefshiidkaaga inuu noqdo mid tartiib ah. marka muhiim waaye markaa miisaan iska ridaysid inaad u tahay si sax ah caloric deficit. mideeda kale ma og tahay markaan cunno raashinku borotiinka ku badan yahay, caloosheena waqti dheer ayay ku qaadanaysaa inay dhalaaliso. processkaasna jirka energy badan ayuu gubaa, markaasna waxay kor u qaadaysaa metabolismkeena ama waxay dhaqso ka dhigaysaa dheefshiidkeena. tusaale ahaan markaa cuntid raashinka borotiinka ku badan yahay sida kalluunka oo kale, hilibka oo kale, digaaga, ukunta, caloosha waqti dheer ayay qaadanaysaa inay shiito. processkaas caloosha ama shaqadaas badan ee caloosha qabanayso energy badan ayay ku gubaysaa. taasna waxaa faa'iido noogu jirto in metabolismkeena uu kor u kaco ama dheefshiidkeena inuu noqdo mid dhaqso ah. marka way fiican tahay qofka inuu cuno raashin borotiinka ku badan yahay oo waxay naga caawinaysaa metabolismkeena inuu noqdo mid dhaqso ah. laakiin taas macnaheeda ma ahan inaad cuntid borotiin badan. borotiin badan haddaad cuntid waxaa laga yaabaa dhibaato inuu kuu keeno. wax kastoo fiican xitaa xad ayay leeyihiin. waxaa kaleeto wax weyn ka qaban karnaa qaab nololeedka aan u noolnahay. lifestyle-keena waan ka bedeli karnaa haddii aan rabno. tusaale ahaan haddaad tahay qof habeenkii dhafro ama ku nool nolol stress badan, taas waxay keenaysaa metabolismkaaga inuu hoos u dhaco. markuu metabolismkaaga hoos u dhacana waxaa suurtagal ah inaad cayishid. firi jirka markuu soo koro stress badan, waxaa imaanayso jirka in lagu soo dayo cortisol badan. cortisolkaas badan wuxuu keenaa thyroidkaaga inuu hoos u dhaco. markuu thyroidka hoos u dhacana waxaa isna hoos u dhacayo metabolismkaaga. meeshaasna waxaa laga yaabaa cayil inuu ka yimaado. marka muhiim waaye inaad ku nooshahay nolol aan stress lahayn, habeenkiina inaad si fiican u seexatid, caafimaadkaaga ku jiro. asxaabta videoga inta aanan ka bixin, haddaad raadinaysid coach, anaa coach kuu noqonayo, diyaaran ku ahay. markaan ku dhahayo coach aan kuu noqonaa, macnaheeda ma ahan barnaamij inaan kuu suubiyo kuu soo diro oo meeshaas iskugu keen dambeynayso. processka dhan waa kula soconaa, wiigii dhowr jeer aan ismaqleynaa. wax kastoo khaldamo anaa bedelayo, waa kula xisaabtamaa, motivation waa kuu noqonaa. haddaad rabtid anigana coach kuu noqdo, waxay igala soo xiriirtaa emailkan. asxaabta daawashada videogan aad daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin. haddaad rabtiin ama haddaad jeceshihiin video noocan oo kale ah, commentiga hoose igu soo qor fadlan. hadday jiraan wax aad rabtid video inaan kasoo suubiyana, commentiga hoose igu soo qor. ha iloobin videogan like na saartid, commenti kasoo bixisid, asxaabtaada u share garaysid. haddaa wali subscribe hina fadlan subscribe leh, subscribe-ka free way. mahadsanediin. waxaan noo balana videogan videoga ku xigo. ballanteennuna waa caafimaad iyo muruq.